markale isku soo noqdo wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena muuqaalka like saar si shirgala saaxiibada gaarsi aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay filimkeena ayaa ku furmay sanada 2067 xilli ay cimilada caalamku isbedeshay dhammaan dhirta ayaa dhimatay kadib markii dhirtu la waayay hawada oksijiinta ayaa yaraatay dadka ayaa soo iibsanaya oksijiin artificial ah si ay u noolaadaan 99 dhulka ayaa noqday madow dadka ayaa u dhimanaya hawo la'aan xaaladan awgeed hal magaalo oo kaliya oo ku taala dalka Australia ayaa laga badbaaday waxaana sababtay shirkad lagu magacaabo Chronicop Corporation taasoo soo saarta hawo fiican si kastaba hawadan been abuurka ah waxay sababtaa cudur dilaa ah dadka ayaa haysta waqti kooban oo ay ku noolaadaan Ethan Way waa muwaadin Australian ah isaga iyo saaxiibkiisa Jude ayaa ka shaqeynaya shirkadda qaybta makaanikada shirkadda ayaa shaqeynaysa habeen iyo maalin si ay u soo saaraan daawo ay ku badbaadiyaan caalamka Ethan xaaskiisa Sen ayaa sidoo kale qabta cudurka Ethan ayaa si adag u shaqeeya habeen iyo maalinba si uu hawo fiican ugu helo xaaskiisa maalin Ethan iyo Jude oo ka wada shaqeynaya qaybta hoose madaxa kooxda baaritaanka Regina Jackson ayaa ugu yeertay xafiiskeeda labadooda ayay isbartay waxayna u sheegtay in bani aadamku dabargo doonaan haddii aan wax laga bedelin xaaladan sidoo kale waxay u sheegtay in Ethan uu yahay kan kaliya ee badbaadin kara adduunka oo dhan iyo waliba qof kasta laakiin Ethan ayaanan aaminin halka Regina ku adkaystay inay u kaxayso shaybaarka waxa yaalay qalab aad u weyn dhakhtar lagu magacaabo Billy Mitchell ayaa soo dhaweeyay isagoona fiiriyay qalabka gacanta ugu xiran Ethan inta kadib waxay u sharaxeen in Ethan aabihiisa Dr. Richard Way inuu bilaabay mashruucan 20 sano ka hor qalabka goobta yaala waa qalabkii waqtiga oo lagu magacaabo Chronicle tijaabadii ugu horeysay ee lagu sameeyay qalabkan ayaa lagu ogaaday in 407 sano kadib 2474 dhulka ayaa yeeshay dhir ku filan iyo waliba hawo dabiici ah taasoo sii wadi karta nolosha bani aadamka laakiin su'aasha ayaa ah bani aadamku intaasi ma sii noolaan doonaan si kastaba khubarada ayaa ku wareeray in qalabkii ay dileen uu soo noqday isagoo isbedelay kadib markii ay u sharaxeen waxay arkeen in qof jooga mustaqbalka uu soo diray fariin ah inay soo diraan Ethan Way sidaas awgeed Regina iyo kooxdeeda ayaa raba inay Ethan u diraan mustaqbalka si uu daawada ugu keeno laakiin Ethan ma aaminin wuxuuna ku fikirayay in Regina ay khiyaamayso sidoo kale ma rabo inuu ka tago xaaskiisa xanuunsan wuxuuna diiday inuu caawiyo inta kadib Ethan iyo Jude oo wada cashaynaya waxay soo iibsadeen qayb hawo ah Jude ayaa isku dayay inuu ka raadiciyo Ethan inuu aado mustaqbalka si uu nolosha dad badan u badbaadiyo laakiin Ethan ayaa ka diiday isagoona u sheegay inuusan rabin inuu noqdo sida aabihiisa oo kale Ethan uu neceb yahay aabihiisa maadaama uusan soo korinin 20 sano ka hor aabihiisa ayaa ka tagay guriga isagoona la waayay halka hooyadiisa la dilay isagoo oo yar ilaa iyo intaasina waxa soo koriyay Jude sida walaalkiisa ka weyn oo kale wuxuuna ku eedeeyay aabihiisa inuu ka tagay hooyadiisa oo xanuunsan si uu mashruuciisa u dhameysto mana rabo inuu isagoo kale noqdo si kastaba Jude ayaa ku guuleystay inuu ka dhaadhiciyo inuu aado mustaqbalka si xaaskiisa uu u badbaadiyo Ethan markuu u dabaaldegayay dhalashadiisa 8aad markaasuu aabihiisa u keenay santuuq isla markuu gacanta geliyay qalab ayaa ku dhigay gacantiisa isagoona dhigay sanado badan oo laga soo wareegay ilaa hadda Ethan ma fahmin sida loo isticmaalo qalabka dhinaca guriga xaaskiisa ayuu wax waliba u sheegay iyadoona kula talisay inuu u baxo mustaqbalka maalinkii xigay Ethan ayaa fariin ugu reebay ubax wuxuuna aaday Regina xafiiskeeda sidoo kalena u sheegay in haddii ay soo helaan daawada qofka ugu horeeya ee la siin doono ay noqon doonto xaaskiisa Ethan Regina ayaa aqbashay iyadoona u kaxaysay dhinaca shaybaarka Dr. Mitchell ayaa tusay suudka uu xiran doono inta uusan bixin ka hor isagoona u sharaxay mashruucan Ethan ayaa xaqiiqsaday inaysan u diyaarsanin wax qorshe ah kama haystaan wax fikrad ah goobta ay tagi doonaan iyo waliba qofka uu la kulmi doono si kastaba marka ay u xireen suudka waxay siiyeen qalab lagu magacaabo Archie qalabkan ayaa ka caawin doona kooxda inay ogaadaan xaaladiisa guud iyo waliba goobta uu ku sugan yahay inta kadib waxay ku tuureen mashiinka Ethan ayaa ku socday xawaare sare wuxuuna ka soo dhacay cirka isagoona ku dhacay keymo aan la garanaynin fasjididka ayaa sababay inuu suudkiisa gubto si dhaqsi ah ayuuna uga baxay wuxuuna eegay dhinacyada wuxuuna la yaabay quruxda dhirta sidoo kalena wuxuu arkay in dunidu isbedeshay hawadana ay noqotay mid dabiici ah wuxuu aaday jihada Archie uu ku hagay wuxuuna arkay ilbaab qarsoon laakiin wuxuu ku arkay qalfoof ilbaabka hortaalay xabada ayaa ka muuqday qalfoofka wuxuuna eegay magaca laakiin wuu naxay markuu arkay in magaciisu uu yahay magaca ku qoran qalfooftu waa Ethan sidoo kale wuxuu arkay Archie wuxuuna daaray duubistii ugu dambeysay ee lagu duubo wuxuuna maqlay nin dhahaya waa wadada kaliya ee noo banaan isagoona toogtay inta kadib dabka ayaa ka dhacay qalabka
wuxuuna xaqiiqsaday inay tahay qadarkii ku dhacay. sidoo kale wuxuu kaloo arkay qalabkii gacanta. qalabku waa mid isku mid ah marka laga reebo iftiinka, laakiin Ethan midkiisa ayaa noloshiisa oo dhan ahaa mid cas. habeenkaasi wuxuu shitay dab isagoona cunay miraha geeda dabiici ah. waxay u muuqataa in miruhu sumaysnaayeen. Ethan ayaa matagay isagoona miyir daboolsamay. Ethan ayaa kasoo kacay xoogaa kadib wuxuuna arkay in Jude uu la joogay. waxaan ogaanaynaa in shaybaarka laga ogaaday xaaladiisa iyadoona loo soo diray Jude si uu daawo ugu keeno. waqti kadib labadooda ayaa arkay qalfoofta, waxayna xaqiiqsadeen in qadarkiisu waxna iska bedelin. waxay isticmaaleen Archie si ay u helaan mid kale. qalab kale ayaa iskaan ka qaaday indhaha Ethan, ilbaabka ayaana u furmay. markii ay gudaha u galeen, qalab kale ayaa kusoo dhaweeyay gudaha, waxaana la weydiiyey DNA-giisa. intaa kadib qalabka gacanta ugu xirnaa ayaa shaqeeyey isagoona ka dhiigay gacanta. kalarka ama iftiinka gacanta ayaa isku bedelay cagaar. leerka gudaha ayaana daarmay. waxayna xaqiiqsadeen inay ku sugan yihiin shaybaarkii Chronicle 407 sano kadib. qalabkii waqtiga ayaa goobta yaalay. Jude ayaa ku fikiraya inay tahay fursadii ay dib ugu noqon lahaayeen waqtigooda, laakiin Ethan ayaa ka diiday isagoona u sheegay inaysan waxna bedelin, sidoo kalena geeri ku dambeyn doono siday soo arkeen oo kale. Ethan ayaa baaray qalabka isagoona arkay duubis hore aabihiisu u duubay, kaasoona u sharaxay in qalabka waqtiga loogu talagalay in lagu ururiyo hawada mustaqbalka si dib loogu celiyo waqtigii lasoo dhaafay. si kastaba markii ugu horreysay ee uu aabihiisii bilaabay mashruucan, wuxuu helay fariin ah in canuggiisii u soo diro, isagoona go'aansaday inuu DNA-ga canuggiisa ku xiro qalabkan. Ethan iyo Jude ayaa ogaaday in qalabku awoodin inuu u diro waqtigooda maadaama bateriga qalabka 407 sano kadib dhintay. dhibaatada ayaa ah in qalabku u muujiyey digniin ah in goobtu ay ku xiran tahay nuclear, waxayna haystaan 4 saacadood. waxay ku qasban yihiin inay helaan goob ay ku hagaajiyaan qalabka waqtiga si ay dib ugu noqdaan waqtigooda inta uusan qaruxu dhicin. dhinaca bannaanka waxay arkeen in magaaladii ka buuxsantay geedo iyo dhir badan, dadna aysan ku sugnayn gudaha magaalada. dhulka ayaana dib iskaga wanaagsanaaday kadib markii bani'aadamku dabar go'een. qalfoofta dadka ayaana taalay goob waliba. Ethan ayaa aaday qolka xaaskiisa, wuxuuna arkay keliya qalfoofteeda isagoona niyad jabay. Jude ayaa ka dhaadhiciyey in ay dib ugu noqdaan waqtigooda, laakiin Ethan ayaa mar kale daaray codkii ku duubnaa Archie, wuxuuna ogaaday inuu yahay codka Jude. Jude ayaa la soo baxay baskoolad isagoona ugu hanjabay inuu toogan doono, laakiin Ethan ayaa go'aansaday inuu marka hore dhammaystiro mashruuca. dadaalkooda dheeriga ah awgeed waxa ay hagaajiyeen qalabka. hadda waxaa shaqaynaya qalabka Chronicle, waxayna awoodaan inay dib ugu noqdaan waqtigooda. kaliya waxay u baahan yihiin inay sugaan 37 daqiiqo si ay dib ugu noqdaan. intaa kadib Ethan ayaa arkay qalfooftiisa oo weli ilbaabka taala, taasoona xaqiijinaysa in aysan weli waxna ka bedelin qadarka. si uu u ogaado xaqiiqada, wuxuu bateriga ka saaray qalabkii fiicnaa isagoona geliyey kan kale. wuxuu arkay muuqaal kale kaasoo tusinaya in mustaqbalka Jude uu gacantiisa ku dili doono. intaa kadib Jude ayaa qirtay inaysan jirin rajo wax looga bedeli karo qadarka maadaama aysan jirin wax aaminaad ah. Ethan ayaa Jude kusoo xiray qol isagoona dib u daaray muuqaalka aabihiisu u duubay markuu dhimanayay. wuxuuna arkay wadahadalka dhex maray aabihiisa iyo madaxa baaritaanka Regina. waxaan ogaanaynaa in Ethan aabihiisu rabay in mashiinka uu isticmaalo inuu ku badbaadiyo dhammaan bani'aadamka markuu soo helo daawada, halka Regina damacsaneed inay kaga baxsato dhimashada iyo dad yar oo la xushay. waxay ku qasbanayeen in ay hal qof u diraan mustaqbalka si uu u daaro qalabka. Ethan aabihiisa si uu u joojiyo qorshaheeda wuxuu ku xiray qalabka DNA-ga Ethan. kadib ficilkan uu sameeyey aabihiisa, Regina ayaa toogatay aabihiisa iyadoona Jude u dirtay si uu u dilo Ethan hooyadiisa, ilaaliyana u noqdo si ay maalin u isticmaalaan Ethan gacantiisa. Ethan ayaa la yaabay in qofkii uu haystay walaalkiisa ka weyn inuu ahaa qofkii dilay hooyadiisa, sidoo kalena uu rabo inuu isagana dilo. wuxuu kaloo xaqiiqsaday inuu khalad fahansanaa aabihiisa, kaasoona ula kac uga tegin qoyskiisa. markuu ogaaday in Regina danteedu tahay inuu u shaqeeyo qalabka yaalla mustaqbalka, Ethan ayaa raba inuu joojiyo qalabka. Jude ayaa u soo cararay si uu u joojiyo. Jude ayaa loo soo diray inuu hubsado in Ethan uu hagaajiyey qalabka kadibna uu u dhameeyo. si kastaba Jude ayaa dib u xasuustay waqtigii uu la soo qaatay Ethan laguna hogaamiyey dembi. beddelkuu toogan lahaa Ethan isaga ayaa istoogtay. intaa kadib Ethan ayaa go'aansaday inuu dadka badbaadiyo, daawadana uu soo helo. wuxuuna ag tegay qalabka, wuxuuna arkay fariin uu aabihiisu u reebay iyo in aabihiisu soo diray fariintii ahayd in Ethan loo soo diro. wuxuuna u diray fariin dhinaca shaybaarka. Regina iyo dad kale oo la xushay ayaa u diyaarsanaa si ay u aadaan mustaqbalka, laakiin Ethan ayaa soo diray geedo badan iyo caddeyntii markii ay dilaysay aabihiisa. Ethan ayaana markiiba burburiyey qalabka.
Regina ayaana loo xiray dilkii ay geysatay. Dhirtii laga soo diray 2067 ayaa la beeray si dib loogu soo celiyo dunidii caadiga ahayd. Ethan xaaskiisa ayaa sidoo kale heshay ubax uu u soo diray iyadoona ogaatay sababta uu soo noqon waayay, halka Ethan ku qasban yahay inuu kaligiisa ku noolaado halkaas. Wuxuuna aasay Jude isagoona iska cafiyay. Wuxuu u soo cararay dhinaca qaybta shaybaarka isagoona arkay qalfooftiisa iyo welibana isla goobtii iyo sidoo kalena isla waqtigii. Sidoo kalena wuxuu u baxay sidii uu arko magaalada, wuxuuna suuraystay inuu arkayo magaalo horumarsan oo aad u qurux badan. Go'aankiisa ayaana bedelay dhammaan dadka iyo welibana dunida. Filimkani waxaa lagu magacaabaa 2067. Waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay dhamaadka muuqaalkan. Fadlan waxaan ka codsanayaa haddii aad daawatay muuqaalkan inaad ku share geliso saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah si ay u daawadaan muuqaalkan iyaguna ay u gaarsiiyaan saaxiibadooda. Waxaan ku bixiyaa waqti muuqaalkan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Waxayna balan muuqaalkan xiisidaasi nabadgelyo.